waqtigan hadda de waxay badan anigu jihaad uma arko dhaqankooduna dhaqan khawaarij way leeyihiin dad wixii been buu noqon wuxuusan haynin wadada ku yiri waan hayaa waan idinka gadayaa sharcigu wuxuu ogol yahay beecu salam waxa la yiraahdo beecu salam wax gaaro hebel ma gadaysid laakiin wax tilmaan laad gadaysaa waxaadna ku gadaysaa muddada inaad keento طبعا canshuurtu way ka mid noqon kartaa dowladaha la siiyey waxay danahooda gudaha iyo ciday dibadda taageerayaan buu isticmaalaan dawaa khawaarij iyo kale sameeyeen iyo wadaadun baad ku wareegtaane horta mashruucan yaa leh yaa fangareeya muxuu fuliyaa siyaasaddu wuxuu fuliyaa majihaad baa in masaajidda tukanaya la qarxiyo dunida muslimka laftooda inta badan dastuur baa lagu maamulaa markaad dokumentigii qaadanaysana taas oo kaleeto unbaa la saxiixa dastuurka inta badan dunida muslimka jirana dee dastuur islaami ama aha haddii aad rabtaa in ganacsigaaga uu cirka galaa amaba aad gaarta malaayiin macaamiil ah oo ku kala nool daafaha caalamka taasi waxaa kuu suurtagelin karta oo keliya ConnectWave waa shirkad digital marketing ah oo u taagan isku xirka ganacsatada iyo macaamiishooda iyadoo loo sii maray dadka ugu saameynta badan baraha bulshada waxaanu wakiil ka nahay malaayiin shacab ah kuwaasi oo diyaar u ah in ganacsigaaga ay qayb ka noqdaan waxaanu ku haynaa halkii kama dambayska ah la soo xiriir ConnectWave si ganacsigaaga uu horumar ballaaran u helo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u wanaagsan daawadayaal waxaan ahay cabdijaliil cusmaan cabdijaliil show ayaad la socotaan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu Nairobi kula yeelanaynay Sheekh Dr. Maxamuud Maxamed Shibli oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed qaybtan labaad waxaan u guda gali doonaa su'aalaha ay noo soo direen qaar kamid ah daawadayaasha oo aanu iyagu u bandhignay in ay su'aalo u soo diraan sheekha boqolaal su'aalood ayaa la soo diray waan ka xumahay in aan dhamaantood halkan ku soo koobi karin laakiin waxaan soo xushay kuwii ugu muhiimsanaa fadlan haddii aadan su'aashaada halkan ka arkin micnaheedu ma ahan in aanay muhiim ahayn balse waqtiga ayaa saamixi waayay marka barnaamij noocan ah waanu qaban doonaa mustaqbalka insha Allah hadda waxaan u guda galaynaa sheekha qaar kamid ah su'aalihii ay noo soo direen dadweynaha oo inagoo mid u dul istaagi doona insha Allah hadduu aleedmo waxaan u soo qaadan doonaa inta waqtiga uu noo saamaxa sheekh Allah barakeeye saa'ilkan koowaad waxa uu leeyahay waxaan weydiinayaa su'aal ku saabsan lacagaha digitalka ah waxaan u kala qaadayaa laba qeybood forex in laga shaqeysto ma xalaal ba mise waa xaraan sheekh su'aashayda labaad ama mowduuca labaad waxay tahay lacagaha cryptocurrency-ga iyagana in laga shaqeysta diintu maxay ka qabtaa waxa sidoo kale la socda ganacsiga dropshipping loo yaqaan isna ma xalaal ba mise waa xaraan dropshipping sheekh hadii aad taqaan waa taqaan hadii aan aqoonin oo kuleyto waxa waa in ganacsi qaab digital ah sidoo kale loo sameeyo oo in China iyo wadamadaas laga soo dhoofiyo alaabo qofka delivery ugu sameeyo dropshipping baa la dhahaa isagoona qofka wax wadan kale yaala dadka ka iibinaya marka saddexdaas su'aalood sheekh baa isu kii raacinaysa insha Allah hadduu aleeyo bismillah alhamdulillah salatu wassalaam masalada forex-ka marrabena hadda aad u galo sheekh walba saacadii waxoogay ka hadlay haduu qofku Facebook galo ama YouTube galo oo forex sheekh Umar uu qoro wuxuu helayaa isagoo qaababka uu yahay noocyada uu yahay gaar ahaan kuwii Soomaalidu ay galayeen waayaha dhoweytay aadka loogu dhacay aadka u khasaareen isagoo ka hadlaya helaysaa de ganacsigu hal dhib baa jira hadduusan qofku ganacsi kale ka samaynaynin waxay u baahanaysaa marka wixii lacag lagu sarrifaya hadday noqoto sharcigu in la kala gudoomo qaba oo markaad lacagtan wareejiso lacagtii kale aad gudoonto inta wax isweydaarsiga ama wada fadhiga ama wada hadalkaasi uusan dhammaanin ama gacan kaga gudoon ama dokumenti kaga gudoon oo dokumentiga check la gudoomay baa kamid account lagu shubay baa kamid sadarteed taasaa asaasa in la xaqiijiyo markay ganacsi tahay markay iscaawin tahay shuruudaha looma xiro
hadda maanta $1,000 haddaad ii deymiso markaan helaan ku siinayaa dollar kii laftiisiina ma waa dollar kale oo waa soo bedelay laakiin baabku ganacsi mehe waa iscaawin baabkaa markay tahay ribadu ma gasho waxay gashaa markay ganacsi wax kale iibsi tahay markaa lacag baad iibinaysaa lacagna waad iibsanaysaa taad iibisay way kaa baxday taad iibsatay ma heshay mise process bay soo maraysaa iyo waqti bay qaadanaysaa haddii ay process soo marayso maxaa documenti la tix raaci karo oo loo aqoonsan karo inaad guddoontay aad haysataa halkaa wayaan filayaa halka mushkiladda ugu badan ay ka jirto dabcan dee hal xugun in la sii way adkaanaysaayo teknolojiga iyo mucaamilaadku sanadkii horeba sanadka waxbaa ka bedelan sanadkan sida loo isticmaalay waxaa laga yaabaa bisha ka dambaysa in ama shirkadaha cusub ee soo galay ama abiska cusub ee la soo geliyey inay wixii wax ka bedelan yimaadaan iyadoo wixii aad wax ku salaysay wax ka bedelan yimaadeen oodan dib u akhriyan haddana dee xukunkii inaad siisana masaxa maaha sa darteed waxaa idhahdaa badana wixii si guud rabana sheekh umar ha dhegaysto wixii su-aal gaara qabana waxaan u baahanayaa inaan su-aalo ka weydiiyo aan sheegayey say u dhacdaa tan adigu aad ku jirto waxaan ogaanay dadkii kuway ku jiraan isku wada mid ma aha processkooda isku wada mid ma aha saa darteed kan inuusan la xugun noqon baa dhici karta saa darteed si shaksi ah waan u weydiinaa horta adigu noo sharax forexiska aad ku jirta waa noocee 1 2 3 markuu ku siyaad garan kartaa inuu dariiqii khaldanaa yahay iyo kii saxnaa inuu yahay si gudna sheekh umar dhegaysa si gaarana su-aal gaara qofkii qabo ta isagoo ku jira ha noo sharxo su-aashan kale lacaguhu markii laga soo tegay dahab iyo filda dirham iyo diinaar ah waxay isu bedeleen inay lacag noqoto waxaan isaga qiimo lahayn laakiin lacagnimada qiimo ku leh lacagaha hadda la watee waraaqaha haddii dowladdu bedesho meesha laga saaro qashinka waxba kama duwana oo iyadu macna ma laha laakiin lacagnimada ay ku leedahay marka waxaa su-aal u baahan lacag ma yihiin mise ma aha su-aashaana waxaa ku xiran qaabka looga ganacsanayo shuruuddii lacagtay qaadan mise qaadan mayso ma jiro ilmo intuu dhasho isagoo qaangaara dhasha mana jirta lacag dhalata iyadoo wada lacaga way koraan lacaguhu ilaa ay gaaraan heer lacagnimadii axkaamteeda inta ka horeysa badeecad caadi ay ahaadaan markay shuruuddii buuxiyaanna xukunka lacagtay u wareegaan sa darteed taariikhda isbedbedelkii lacagaha ku dhici jiray ama markii lacagta fuluuska ee macdanka iyo la sameeye ha noqoto ama markii lacagaha waraaqaha yimaadeen ha noqoto ama jeegagu markay yimaadeen ha noqoto wax one day un maalin intuu dhashay durba lacag noqday ma jiro way soo koraan shuruudday qaar buuxiyaan qayb bay buuxiyaan intaanay shuruudda buuxinin xukun lacag ma qaataan laakiin xukun badeecad bay qaataan bitcoin baa la kala gadanaya kanaa la kala gadanaya lacag ma aha waa badeecad la kala iibsanaya qiimahay dadku u yeelaan waxay u taraysay ku xidhanta qiimaheedaa lacag ku qoran waxaan waa lacag iyo lacag baa ku qoranna waa kala laba xukunka sharciga marka la eegayo kaarka 1,000 shilin aad gadanayso lacag 1,000 shilin aa ku qoran laakiin lacag 1,000 shilin isaga maaha iyadii baad ku gadanaysaaba dee ku bedelanaysaa waa service iyo khidmad 1,000 shilin u dhiganta marka lacag maadan ku gadan markaad 1,000 ku gadatee dee 1,000 maxaad uga baahan tahay lacagtaada 1,000 jeebka ku haystee laakiin waa khidmad qiimaheedu 1,000 yahay saa darteed waxyaabahan waxaa ku qoran qiimaheedu waa lacagtaas macnaheedu qasab maaha lacag inay noqoto wuxuu markuu lacag noqonayo 3 arrimood baa laga doonayaa 1 inuu ogolaansho dadka haysto 2 inuu dadku loo qaato heer wixii lagu qiimeeyo wax lagu jaangooyo u yahay koobkan aan hayaa imise wayaa dhihi imisadii waa inay jawaabtu isaga noqoto noqon kara jawaabtii dadka dhib baa kala gaaray waxaan gaaray qofkan maxaa lagu qiimeynayaa waa inuu jawaabtii noqon karo 3 markay lacagihii dahabiya ka tageen waa inuu damaanad mas-uuliyad leeyahay haddii kale nin walba waraaqu iska daabacan lahaa markaasay lacag noqon lahaayeen waa damaanad inuu leeyahay saa dad bay lacaguhu ugu tiirsan yihiin dowladaha waayo hadhow lacagtii dowlad baa mas-uul ka ah oo damiinkaa inay kaa qaadanaysa dad u geyso
laakiin anu haddaan lacag iska soo daabacda kartoono magaca le oo shibli la yidhahda haddaad cabdiljiil lacaga iska soo daabacato dadkii haddii xoolo geliyay maxaa dameenad u ah taasaa waxay keentaa in la tixgeliyo oo la raaco adbeheerka ay marayso haddii la yidhi 3 shardi mid bay buuxisay weli lacag maaha mid labaad bay buuxisay way u badatay laakiin lacag maaha 3day buuxisay waa lacag hadda marka waxaan shalay lacag maaha la yidhi maanta lacag weeye waa la dhihi karaa sababtoo shuruudu shalay uusan buuxin buu maanta buuxiyey saas darteed lacagahani waxay ku xiran tahay ma buuxiyeen shuruudii intaan ogahan wax kaamtii lacag shuruud mayna buuxinin laakiin haddii badeecad iyo waxa la kala gadanayo tahay dee badeecadaha la kala gadanaya kamid tahay wixii dadku ay qiimo u arkaan inay gataan hadhowna usii gadmayo dhagxanna ha noqdo soo dhagxan lama kala gato usoo ciid lama kala gato usoo qoriyo geeda lama kala gato wixii markaa dadka curfigooda maalna u dhigma waxana gooya badeecad laga ganacsan kara laakiin shuruuddii sarifka iyo lacag u gaday iyadaa zaka ka waajibaysa iyo axkaamtii ma laha lacaga weli inay buuxsamaan bay u baahan tahay dropshipping baa soo haray dropshippingku aqoon badan uma lihi waxaan malaynayaa inta hadda sheegtay ka badan baan u baahanahay dropshippingka sheekh waxa waaye website ayaad samaynaysaa internetka waxa aadna gelinaysaa sawirada dhar sida koofida aad xiran tahay galaaska aad xiran tahay kabaha aad xiran tahay iyo khamiiskaaga laakiin agabkaasi adigu ma haysid kaliya sawiradooda ayaad internetka gelisay marka qof gurigiisa jooga uu ka soo dalbado ayaad koofida raadinaysaa iyo shaarkaas aad China ka raadinaysaa ama Mareykanka aad ka raadinaysaa ama suuqyada caalamka aad ka raadinaysaa kadib ayaad qofkii alaabta ka soo dalbaday aad u diraysaa waxa laga yaabaa qofku lacagta ma bixiyay qofka lacagta uu bixiyaa qofka lacagta uu bixiyay qofka maxaad u sheegaysaa alaabta inaad hayso mise inaad soo heli karto alaabtan in store ayaad ugu qoraysaa ama store-ka ayay taalayeen laakiin store ma jiro website unba ku yaala kale sawirro ayaa halka ku jira bakhaarna qofka ma lahan inta ugu badan qaar bakhaar waa jira Amazon FBA baa la qaar alaab bakhaar la dhigay waa jira laakiin dropshipping inta ugu badan qofka bakhaar waxba uma yaalaan kaliya internetka ay sawirro ugu jiraan lacagna xisaabta ku qoranaysa in store ayaad ku qoraysaa laakiin marka laga soo dalbado ayaad lacagta tusaale camal koofidaas marka $50 qof aad kaga iibisa ayaad China u dalbaysaa iyadoo $20 ama $30 ayaad ka reebanaysaa ama iyadoo $25 dalbaysa $25 ayaad ka faa'iidaysaa sida ayuu u shaqeeyaa laakiin wax store ku yaal uma badna inta badan alxamdulillah waxaan filayaa inta hadda aad sheegtay hadday tahay beec ahaan ma banaana mid ku dhow baa jira oo aan dhihi lahaa dadku hadday sameeyaan taatu ku dhow oo sharciga bannaan baa jira beec salam la yidhaahdo inaad noocaas ah oo tilmaamaha leh aad gaddo waktigaa inaad ku keentana lagaa rabo oodan dhihin waan hayaa baa sharcigu ogol yahay beecu salam baa la yidhaahdaa war anigu wax tilmaantaa leh oo muuqaalkaa leh oo midabkaa leh oo cabirkaa leh baan kaa iibinayaa waktigaa inaan kugu keenana aan ku heshiinana waan kaaga iibinayaa qiimahana waad ii hormarin intaa waa la ogol yahay laakiin haddii lagu daro anaa hayo way taallaa wixii been buu noqon wuxuusan haynin buu dadka ku yidhi waan hayaa waan idinka gadayaa sharcigu wuxuu ogol yahay beecu salam waxa la yidhahda beecu salam wax gaaroo hebela ma gadaysid laakiin wax tilmaan laad gadaysaa waxaadna ku gadaysaa muddadaa inaad keento waan hayaa iyo ma haya inaad tiraahdana kuma qasbanid ma haya inaad dhahdana kuma qasbanid laakiin waxaan bannaan inaad dhahda waan hayaa waa been sheegto waan hayaa inaad dhahda lama ogola laakiin ma haya inaad dhahda qasab ma aha walidaalika saxaabada markii la weydiiyey dadkan aad waxaan kasaa kaga gadanaysaan miyay hayeen ma haysan maanaan dhihi jirin bay dheheen waxayna ku dhici jirtay badanaa beeraha xilligaasa beeraha la goostaa intaasoo jawaan oo beriisa ama badar ah baan kaa iibsanaya oo intaa cabirkoodu yahay lacagtoodii waatan marka waqtigaa la gaadhay ii keen markuu keenaa laga eegayaa shu tilmaamihii hadday tilmaamihii buuxaan alaabtaadaad qaadanaysaa haddii wixii wuxuusan ahaynna waxaad leedahay waxaan waxay meehan wax igii cilan way keen beecu salam baa la yidhahdaa beecu salamna beecu sifa wey wax tilmaaman baad gadaysaa ooda ma haysid laakiin ma haya inaad dhahdana kuma qasbanid saa darteed waxaan dhihi lahaa dropshippingku saa hadduu yahay wuu bannaanaan karaa inay stoorta ha ka daayaan stoorku ku jiraa waan hayaa milkaygu ku jira waa been maanaa waxaan kaa gaday waxaan hayo mana haysid kanna wuxuu ka soo haraa xadiidka waxaa la yidhi wuxuusan miil lahayn yuusan gadin kanaa ka soo haray tilmaanta lagu gaday
marka adigu ama adiga warshadta ah soo saarto ama meel kale ka soo gado ama drop shippingka website fur ama magaaladaba halkan telefoon sidaa iyo sidaa iyo sidaa aan kaa gaday qiimahaas aan kaa siinaya berrina waan kuu keenaya on drop shippingkii oon website ahayn saas waa la ogolyahay waan hayaada ha ka daayaan wahagaag qofka ku nool wadamada reer Yurub ama qofka ku nool wadamada reer Yurub ayaa sheekh su'aashana soo weydiiyay waxaan bixiyaa cashuur ayuu dhahay canshuurta aan bixiya waxaa lagu taageeraa Israa'iil iyo wadamo la mid ah waxaan lagu xusuuqaa dadka reer Falastiin haddii aan Afrika u soo guuri lahaa oo aan wadamada canshuurta aan ku bixiya aan isaga soo tagi lahaana waxaan tii Afrika kuma leeyahay sheekh maxay ila gudboon ma canshuurta ayaan bixiyaa cidii la rabo lagu waxyeelay maxay ila gudboon qofkan leeyahay alxamdulillah طبعا canshuurtu way ka mid noqon kartaa dowladaha la siiyey waxay danahooda gudaha iyo ciday dibadda taageerayaan buu isticmaalaan canshuurta bixinteedu asal ahaan dembi ma aha haddii dariiqeeda ay marto dadku khidmad bay uga baahan yihiin dowladda khidmaddeena kharash bay u baahan tahay haddeena dowladdu hanti iyo khayraad dabiici oo kaga filan haysanin dadka amnigii in la sugaa loo baahan yahay jidad in la dhisaa loo baahan yahay dadku tekada in loo dhisay rabaan boodyo ay maraan in loo dhisay rabaan waxay rabaan amnigoodii in la sugo oo booliis iyo nabadgelyadii tuugadii laga celiyo wuxuu dhan kharash buu u baahan yahay kharashkii dadkan lagu ilaalinayay jidadka lagu sameynayay wax lagu barayay caafimaad firiya marqarkood lagu siinayay yaa bixinaya dowladdu ma hayso sharcigan wuxuu ogol yahay markaas dadka in laga qaado inay baahi jirto dadkana cadaalad looga qaado dadna laga qaadin dadna xooluhuna ay ku baxaan meeshii loo qaaday oon jeebka lagu guranin ilan dadka xoolaha uma bixinin dad kaliya inay ku waxayaan meel khaldan loo adeegsanin hadday dhacdo qofku marka intaa xaq baa loogu leeyahay khidmadda isaga loo qabanaya qarashkiisa kaga aaday inuu bixiyo kuma laha dadka kale inay jidkii iyo amnigiisa ilaalintii tuuga ka celintii isaga laga celinaya isku intifaacay dad kale ha bixiyaan ana waxba bixin maayo ninkan deriskayga ha bixiya ana bixin maayo xaq uma laha taasi waa xuquuq lagu leeyahay uma diidi karo waxaa dhici karta wuxuun kamida wixii aniga qasabna maaha canshuurtii adiga laynaga qaaday lafteeda in qof kaa lagula dagaalamo ama hebel lagu kaalmeeyo khalqiga wadanka degan canshuurta laga qaaday oo adigu qof aad tahay 40 milyan weeye dadku canshuur bixiyayaashu iska dhe 20 weeye nus weeye 20 milyan baad hal qof ka tahay waxaa lagaa qaaday adiga wixii khidmaddeed u baahnayd kaaga soo aaday marka laga bixiyo maxaa baasanteed ka soo hari kara haddaad og tahay baasanteej hubto oo ka soo harayo ku aadayo dad la dulminayo ama falastiin ha noqoto ama meel kale ha noqotee ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo dad la dulminayo loo adeegsanayo qadarkaa waa diidi kartaa waa la dhuuman kartaa haddaad awoodo haddii aadan awoodin qofku dembi kuma laha magacaygu waa liibaan yuusuf sheekh waan salaamayaa waxaan weydiin lahaa ayuu yidhi haddii aan shay iibsanayo isla markaana haddii aan iminka laygu dhahay waa $20 baa shaygan lagu iibinayaa laakiin haddii aan iminka iibsanayo $20 la iga siinayo laakiin $5 haddii aan sii bixiyo oo hordha marisa aan sii bixiyo shaygaas la $20 uu weli ahaan doono iibkaasi ma xalaal baa mise waa xaaraan dabcan waa installment camal baa ila tahay sheekha oo shaygan $5 bixi laakiin still hadhow markaas $5 lagaa qaado $20 waa lagaa sii rabaa oo $25 ayuu tagaa laakiin marka ayada haddii aad lacagta bixinaysa shaygan un 20 kaashka iyo deynta kala qaadaysan ha 5 baa la socda mabda'a ama hadda kaash ku gado ama deyn ku gado deyntaasi ama lacagtii oo dhan ha noqoto ama qayb ka mid a ha noqotee gorgortankaasi waa bannaan yahay keliya waxaan rabaa heshiisku inuu cad yahay waxaad ku heshiiseen inaad kaash ku kala heshiiseen inaad ku kala gadateen iyo kan yarin yartay deynta inaad ku kala gadateen inta hore waa gorgortan iyo wada hadal labada qof ee isku xiga baad laba beec ka kala gadi kartaa xoolahaadaa leh isna xoolihiisuu leeyahay
doolarka 100 sarrifayso halkan aan joogno yaad midna 150 kaga sarrifi kartaa midna 120 kaga sarrifi kartaa labada qof ee kala duwan baad halka shay laba beec ku kala gadi kartaa qofkana laba beec kala dooro haddii la yiraahdo way banaanta laakiin markuu kan deynta ku gadanaya hal arrin iska ilaaliyo haddaan waqtigii ku bixin waayo maxaa dhacay 3 bilood baan qaatay 5 baan bixiyey 3 bilood soo socota min 7 inaan bixiyaa la iga rabaa say 20kii 7 iyo 7 iyo 6 inaan bixiyaa la iga rabaa oo kii baan ku bixin waayay maxaa dhacay heshiisku waa inayna ku qoreen lacagta inay badanayso hadday ku qoran tahay heshiisku yahay lacagtii way badan doontaa heshiiskaa ribo way interest way waayo wixii lagu heshiiyey waa inuusan deyn buu noqday deynna dib kama badato magacaygu waa Munir Mustafa nin ayaan $2,000 amaahiyey 15 sano ka hor oo waqtiga ahayd lacag aad u badan maanta ma waxaan ku leeyahay $2,000 bis lacagtaasi lacag u dhigata ayaan maanta ku leeyahay alxamdulillah horta masaa'ilka qayba ka mid ah ee culimada shariicada iyo nimanka economist iyo dhaqaalo aad isugu jeedeen ilaa haddana aad loogu kala duwan yahay nimanka dhaqaaluhu waxay ka eegaan lacagtu tira lacag kuma ahe tayay lacag ku tahay maxay goysaabay lacag ku tahay sanad hadduu ka soo wareego oo wixii $1,000 joogay 1,100 noqdo 1,100 noqdo 1,000 waa 1,100 qofkan waxba ma dul saaranin laakiin awooddii tayadii lacagta wax goynteedii waa sideedii intiisii unbuu qaatay culimada shariicadana waxaan qabnaa oo axaadiistu ku caddahay lacagi tiradeeday lacag ku tahay taya kuma ah masalada tayaduna lama xakamayn karo haddii aad taya dhahdo oo wixii 1,100 aha uu 800 noqdo macnaheeda 800 baan ku siin miya tayada suuqa labada meelood oo isku xigtaan isku taya ahayn alaabta la gadanayo baan sanadkii iyo sanadkan isku quality ahayn haddii la yiraahdo tayaha lagu xidho xuquuq go'an ma yeelan doonto mid walbana tayadeedu hadda maxay tahay muran iyo qayla ka dhalan doonto ninna kor buu u qaadi ninna hoos buu u dhigi aduu haddaad keentay dukaan 1,100 gadaya 950 mid gadayana na keeni marka 950 qaadan ku dhihi lacagtaada 1,000 aan kaa qaaday waagii tayadeedu hadda waa 950 iyo 800 adaa fahantaan malaynaya halkaa buu muranku ka socdaa saa darteed tiradii haddii wax lagu daro deynna ahayd waa interest ribo waay deyntu lafaheedu ma lumaan mana kordhaan lafuhu hadday kordhayaan waa ganacsi oo riskiga inay lumi kartaad aqbalaysa oo hadday lumi karto inay badatana waa loogolyahay laakiin lafahaygu ma lumaan dee mana bataan weye deyn iyo ammaano weye xoolaha hal mid bay culummada shariicadu ogol yihiin hadduu waxa dhacay in lacagtii suuqa ka baxdo ama ay baaba'do oy macnaba yeelan weydo markaas in loo noqdo gabadh baa la guursaday 1960gii baa la guursaday iyo 70gii 1,000 shilin Soomaaliya lagu meheriyey hadda 1,000 shilin Soomaaliya koob shaahna ma goyso xabadna macna ma goyso mana lacagtii waxay dhacday oo baaba'day burbur iyo baaba xoolihii qofkii eber ka dhigay taa hadday dhacdo ee culimada muslimiintu qayb ka mid oo badan leeyihiin qofkan xoolihiisu waxay u dhigmeen hala siiyo waayo wixii hore ee laga qaaday ma noqon karo wax meesha guda lacagtii baaba suuqaba ka baxday hadda haddii 1,000 shilin intaa siisay Soomaaliya dal kalaba qabsado lacagtiiba laga guuro maxaad siini oo lacag dollar un boqodan ka shaqaysa 1,000 shilin bayna gabadhu meher ugu lahayd ninka 1,000 shilin maba jiraba 1,000 shilin muxuu goyn jiray waa la dhihi kadib waxaa la isku qabtay goormaa la dhihi karaa lacagtani way qiimo jabtay marka intee percentage ka jabto
ragga culimmada waxay u badan yihiin markay 1/3 saddex meelood meel ay hoos uga dhacdo ilaa saddex meelood meel intaynan gaadhin qiimo jabkeedu intii horun baa la bixin hadday saddex meelood meel gaadho xadiidkii dardaaranka ahaa wathuluthu kathiiru bay yidhahdeen waa badan tahay wax badan hadduu yahay xukun kalaa la siiya halkaasay culummada dhaqaalaha iyo raggan dhaqaalaha iyo ragga culummada shariicada mar isaga soo dhowaadaan laakiin asalku tiradii buu ku leeyahay haddaan dhaqaala burbur iyo lumitaan lacagtaasi imanin nacam magacaygu waa Bashiir waxaan joogaa waddanka Holland waxaan ku jiraa kaam ku yaala waddanka Holland lacag ayay nagaalada i siisaa dhan 280 euro ma bannaan tahay anigoo aanan u sheegin inaan shaqeeyo lacag kale inaan bannaanka ka soo shaqeysta markii horena heshiis aan kula galay in aan la soo socodsiin doona haddii aan shaqo kala bannaanka ku bilaabo oo aan dhaqaale kala sameeyo haddii aysan bannaanin lacagta aan shaqeeyey maxaaraanba maxaa ila gudboon tii aan ka qaatay dib meel liiga rabaa qofkaas saas masaa'ilkaasi leeyahay alxamdulilah inaad sheegto waa waajib heshiisna waad ku gashay waxaana wax laguu siiyey inaadan haysanin qof maxaa baahan lacagtan dad baa laga soo qaaday dad baahan oon haysan baa loogu talagalay hadba qadarkaad haysateed ka maaranta xaq uma lihid taad shaqaysatay xaaraan maaha laakiin tanaad xaqdarrada ku qaadatee kala xaaraana qadarkii ku galay marka inaad bixiso waa waajib isdhaafiso waxaa imanaysa markaa kadib iyagii inaad u celiso waxay ku xiran tahay maxaa ka dhalanaya dhib ka weyn mayaa ka imanaya hadaad tagtoo tirada waqtiyaas waan shaqeeyey waxaana waa isoo galay khalad baana lacagtaa ku qaatay maxaa ka dhalanaya haddaan dhib ka weyn ka dhalanaynin waa inaad iyaga u celisaa hadduu dhib ka weyn ka dhalanayo waxaa lagu ogol yahay dad baahan iyo danaha guud inaad ku bixiso ood isdhaafiso aduu qofkii lahaa matid qofkii lahaa iyo dad lahoo baahan inaad raadiso qadarkii oo kale inaad iska bixiso assalaamu calaykum aad u mahadsantahay walaal sheekh waxaan weydiin lahaa kow dad badan ayaa jira sacuudiga si ay ugu shaqaystaan qaab farsamo xaj iyo cimro ku gala marka hore kadibna dhuunta halkaasna shaqo ka hela sacuudiga lacagta ay shaqaystaan xalaal miyaa mise xaaraan diintiisu maxay ka qabtaan alxamdulilah haddee shaqada waxay ku xiran horta sacuudiga iyo meel kale toona iqaamad la'aan iyo sharci la'aan baad ku joogtaa shaqadu kuma xaaraantinimowda sharci la'aan baad ku xajiday ood ku cumraysatayna dembi ma noqoto qofku waddanka hadduu dhuumaal ku joogo sharci la'aan ku joogo ama sacuudi joogo ama meel kale joogay wixii uu shaqaysta isagaa leh hadduu xalaala ka shaqaystay dadka kaleu lamid yahay wuxuu shaqaysto saa darteed iqaamad iyo deganaanshihii sacuudigu caalamkanuu lamid yahay qofkan sheekh wuxuu leeyahay haddii aan halkaas mar kale fahno waxaan ku tagay in aan cimraysanayo ama xaj darteed ayaan u tagay fiisayga wuxuu ahaa fiise xaj ama fiise cimraa mushkilad ma laha laakiin markii aan tagay baan ujeedadeyduna waxay ahayd inaan shaqo helo oo aan shaqaysto sharci ahaan dadku xaj iyo beytka ilaahay hadday tagaan in xoog lagaga saaro xaq looguma laha muddada kadibna baxadu xaq loo leeyahay maaha qofka muslimka iyo dhulka muslimka iyo beytka ilaahay iyo xaramkiisa intuu rabu joogi karaa sharciga ama dhib kaaga yimaada oodan xamili karin ama duruufta kuu saamaxayna waa adiga laakiin sharcigan ah muddadaasaad haysataa waa inaad baxdaa diinta ma waafaqsana saa darteed xaq baad u leedahay sharci ahaan waa iska joogto sharci la'aan hadaad uu ka bixi karto culayskeeda iyo nolol adaygeeda iyo cararkeeda iyo dhuumaasheeda aad ka bixi karto waad joogi kartaa magacaygu waa Fallis su-aasheedu waxay tahay goobaha ganacsiga lagu iibiyo cosmeticska gaar ahaan kuwa la isku cadeeya ama qasqaska haddii aan ka shaqeeyo oo aan mushaar ka qaata ma xalaalba iyana qof baa soo weydiinaa arrimaha ganacsiga weli ku guda jirnaa alxamdulilah su-aashu waxay ku xiran tahay waxaanaad ka shaqaynayso marna waa dadka gadaya ka shaqaynaya marna waa dadka gadanaya isticmaalaya waa kala labo gabadhani waa dadka gadaya ee ka shaqaynaya waxay ku xiran tahay laba arrimood inay ka fiiriyaan kow maaddaday ka samaysan tahay inay maaddo xaaraan iyo nijaasa ahayn waxbuu ka samaysan yahay waxaanay isku dardarayaan hadday doofaar iyo waxyaaba lamid iyo ka soo jeedaan
وحاران نجاسة هدو كسميسيه ama cosmetics ha noqdo ama meel kale ha noqdee dee waxaa xaaraanta iyo nijaasta dad in laga gada ma banaana in laga shaqeeyana ma banaana shardiga labaad waxaanay dadka u qasayaan ay ka gadayaan waxsa caafimaadkooda halis ku ah waa inuusan noqonin haddaa dadkii ka gadaysa sun cosmeticsna ugu magacaawdo jirkooda markay maraan kansar iyo jir googo iyo ay ka qaadayaan markay sidii loogu talagalay isticmaalkii aad u sheegtay ay isticmaalaan suntaa dee dadka caafimaadkooda dhibaysa in laga ganacsado lama banaana saa darteed dadka cosmetic ka shaqaynaya waxaan kula talin lahaa inay dhakhaatiir xiriir la yeeshaan oy ka ogaadaan waxani wax dhib geysanaya miyaa mise ma aha isan dhibna geysanaynin xaaraanna ka samaysnayn ka ganacsan karaa waana ka shaqayn karaan dhib malaha sheekh saail kale wuxuu leeyahay waxaan ka shaqeeyaa wadamada reer galbeedka waxaan ku shaqaystaa uber delivery wax loo yaqaan ama cunada raashinka dadka la geeyo mararka qaarkood waxaa dhacda in aan geeyo cuno aan xalaal ahayn oo qof gaal ah aan delivery ugu sameeyo lacagtaasi ma xalaal baa iga soo gashay uber deliveryga ee aan cunada xaaraanka ah qof u delivery gareey wuxuu doonaba ha ahaadee mise qasab waxaa ah in cuna xalaal ah kaliya aan delivery gareey choice-na ma haysto alxamdulilah horta dee ama dad in la qaado ama alaab la qaado oo gaadiid iyo kalaga shaqeeyo asalku way bannaanta ama gaariwaari waaweyn iyo treelayo ku qaad ama taxi dad qaadan noqo ama mid alaab qaadan noqo asalku waa shaqo bannaan waxay ka mid tahay shaqooyinka bannaan ee lagu leeyahay uun taksiilaa tahay dad baad qaadaysaa dadka waad qaadi kartaa laakiin meel xun ood ogtahay ha geynin oo garab ha ugu noqonin gaadiidka waaweyn waad qaadi kartaa alaab laakiin xaaraan aad ogtahay ha qaadin deliverygana waa sidii oo kale delivery cuntooyin markii la samaynayo dee intaan ka fahansanayo waxaa weye cuntooyin badan oo kala duwan mar cabitaanaa la qaadaya mar waxaan cuntaba ahayn inaad qaadaa laga yaabaa mid cunto qalalan baa la qaadaya mar cunto bisil baa la qaadaya mid xalaal bay noqonaysaa mar xaaraan bay noqonaysaa hadday sidaa tahay isku jirka asalka shaqada waa bannaanta waxaa soo haray kan xaaraanta qaadistiisu laba mid weeye inuu og yahay wuxuu qaadaya xaraam inuu yahay iyo inuusan ogeyn hadduunusan ogeyn dambi ma laha waajibna kuma aha tan aan qaadaya maxalala mayso xaaraan inuu dhaho waajib kuma aha hadduu og yahay xaaraan inay tahay marka waxaa imanaysa inuu qaado ma ku qasban yahay mise kuma qasban waa diidi karaa hadduu diida maxaa ka dhalanaya ma dhib ka weyn ba ka soo gaaraya hadday noqoto dhib inuu ka weyn ka soo gaarayo oo ku qasban yahay uu qaadi waxa ka soo galayna wuu isdhaafin dad baahan iyo dad masaakiin iyo buu gaar intuu isaga dhiga siin wixii ka soo gala si uusan xaaraanna u cunin dhib ka weynna uusan u gelin saa darteed ba waxaa la rabaa xaaraanna inuusan cunin isna aan sabab loogu noqonin inuu dhib iyo mushkilad iyo waxaa laga yaaba inuusan kasoo kaban karin uusan ku dhicinaa sheekh cunooyinka ubarka haddii aan halkaan yara xoojino cunooyinka ubarka qofka message ayaa usoo dhaca oo leeyahay adeeggaas maqaayad habelka qaad guri habel ama adres habel gey qofkaasi lagama yaabo in cunadaasi raashinkaasi uu ogaado wax box ba afka ka xiran point A ka qaad point B gey ayaa leeyahay so waxa laga yaabaa qofka aad u geyso inuu noqdo qof gaal ah marka cunadan aadan ogeyn marka taa mushkilada gaal waxna waa laga gadan karaa nabigu niman reer yahuuda la noolaa sal slam madiina nimankaa markuu ilaahay tilmaamay wuxuu yihi akaaluuna lisuxti niman xaaraan cun badan wey waxna waa ka iibsan jiray intay marti qaadaanna gurigooda waa tegi jiray hadiyadday u keenaanna waa qaadan jiray waxaan adigu inuu xaaraan yahay haddaadan ogeyn waa gaal iyo amuu xaaraan yahay wax kuma xaaraantinimoobaan perfect magacaygu waa Saciid sheekh waxa ay tahay su'aasheeda sheekh 2010 ayaan gabar ku mehersaday lacag dhan 10 bitcoin gabadhii in muddo ah ay kadib waan kala tagnay 2024 sanadkan hadda gabadhii marka aan furay bay gabadhii waxa igu leedahay meherkeygii waxaad igu siisaa qiimaha hadda ay joogta bitcoinka anna waxay ahayd 2010 markii aan gabadhan ku mehersanay bitcoin waxay igu leedahay lacagta ayaan ka rabaa waxaan rabaa inaad ii sheegtay qiimaha aan bixinayo markii hore
qiimihii 2010 ay joogtay 10 bitcoin ayaan bixinayaa mise hadda 2024 bitcoin qiimaha ay joogtay ayaan bixinayaa wax bitcoin ahna ma haysta iyo hoos ka soo qoray alxamdu gabadha horta bitcoin bay ku leedahay waxa lagu heshiiyey isku mehersaday ku leedahay waa bitcoin haddii wax ka duwan bedelkeedii inuu siiyo uu rabo ama lacag ha noqoto ama hanti kale ha noqoto wax ka duwan inuu siiyo ama xoolo muuqda ha noqoto ama khidmad iyo service ha noqoto inuu ugu bedelo wax hadduu rabo inay ka heshiiyaan bay u baahan tahay laakiin gabadhu waxay ku leedahay rasmiga haddii la rabo bitcoin bay ku leedahay bitcoin bana ku mehersaday 10kii bay ku leedahay ninkii 10 geela ku mehersaday gabadh 10kii geelay ku leedahay ninkii 4 qaalmood oo loo ku mehersaday 4 qaalmood bay ku leedahay wax kale aan kuugu bedeli aan qiimaha ka heshiinay u baahan tahay marka tan oo kale laba dariiqun baa furan inay labadoodu wada hadlaan dad dhexdhexaadiye helaan meel la isugu keeno lagu heshiisiyo inay maxkamad iyo dacwad isla tagaan xukunka maxkamaddu waxay xukunta ay qaataan marka xuluq la isku qabsado hal qof looma jawaabo laba dhinac dhageyso nabi daawud in la canaan samada maqan 9 buu leeyahay ana mid baan leeyahay tii ugu darbuleeyay tira meel xun iga taale marka sidan oo kale markay xuquuq ismaan dhaaf dad ka dhaxeeyay yihiin fatwa ma gasho qadaa bay gashaa sadarteed taladan si la ninkan waxa weeye xukun ahaan bitcoin bay ku leedahay bedelka waa ka heshiin karaan dad dhexdhexaadiyo isu jiijiido oo maslaxadii heshiis ka dhaliya raadiyaan wixii xiga hadii la waayo maxkamadii xukun sharci intay isla tagaan wixii lagu kala xukumo ha qaataan sheekh magacaygu waa maxamed xuseen waxaan ku noolaa dalka Kanada waxaan qabaa su'aal la xiriirta mortgage-ka guryaha lagu qaata maxay shareecada ka qabtaa guryaha laga iibsanayo dalalka reer galbeedka iyo interest-ga saaran alxamdulillah ma garanayo heshiiska inaan arka mooyeen heshiiskan lagu gadanayo waa banaaye ma banaana ma dhihi karo interest ma banaana laakiin heshiisyada lagu kala gadanayo gaal iyo muslimba wax waad ka gadan kartaa heshiiskaad la gasho buu ku xiran yahay waxan ma xalaal ba mise waa xaraan heshiisku kow laba muxuu ka kooban yahay gaalka iyo bangigiisa heshiis xalaal ah waad la geli kartaa heshiisku saxan yahay ka supermarketka soo alaab kama gadatid kan shidaalka gaalkaana soo kama gadatid kan makhaayadda gaalka joogaysa kama gadatid kan gawaarida gadayna soo kama gadatid kan guriga gadayna waad ka gadan kartaa ama bangi ha noqdo kan bani khamri ka sameeya wax xalaal ah u leeyahay waad ka gadan kartaa laakiin waxaa leeyahay marka heshiiska idin dhex maray ma saxan yahay mise waa khaldan yahay marka qofkani wuxuu u baahan yahay culimada la joogtay intuu u tago heshiiska uu gelay inuu weydiiyo intaa un baanan dhahnaa kuwa halkan nala jooga xataa kuwa islaamiga bangiyada wata magaca islaamiga la heshiiye waxaan dhahnaa heshiiska aad rabto inaad gashan noo keen aan akhrina markaasaan garan karnaa inuu saxan yahay inuu khaldan yahay laakiin waxaanan ogeyn wuxuu ka kooban yahay waa khaldan yahay ma dhihi karo waa saxan yahay in intaan ku dhaho wax hoosta wax ka khaldan yahay wadaadkii lagu shaabadeeyo wuxuusan ogeyn buu ka hadlay culimmada heshiiska draftiga qaada culimmadiina ula taga hadday qof daruuro qabanayso oo daruuro xaaraan banaysa jirayso waxaa garan kara culimmada la joogta iyo waxa ku xeeran iyo duruuftan iyo daruuro ma tahay waddan aanan joogin dhaqankiisa aqoonin duruuftiisa ogeyn hebeloo jooga daruuruu ku jiraa dee aniga ma dhihi karo وهاك شيخ سائل كان كله وحولي مقعي واد المديد شيخ دلشada wadamada Yurub marka la qaadanayo waxa jira dhar lagu dhaarta in aad daacad u noqonaysa isla markaana aad difaacaysa sharciga iyo dastuurka wadankaasi sharciyadaasna waxa laga yaabaa in ay ku jiraan sharciyo badan sida gaalnimada sida khaniisnimada iyo in waxyaabo badan oo dastuurka wadankaasi uu qaba laga yaabo inaad ku dhaarata ma lagu gaaloobaya qaadashada iyo dhaarta wadamadaasi sharciyadooda الحمد لله horta mas'alada wadamo gaar ku ah maaha dunida meel kastoo la joogaba document iyo citizenship iyo jinsiyad dadku daruuraadkay ka mid noqotee la'aanteed aan la joogi karin dunidii muslimka laftooda inta badan dastuur baa lagu maamulaa markaad documentigii qaadanaysana taas oo kaleeto unbaa la saxiixa dastuurka inta badan dunida muslimka jirana dee dastuur islaami ah ma aha taasi waa qadiyad
horta aan raba inaan idhaahdo waddamo gaala waxaa laga yaabaa gudaha waxaa ku jira inay kala duduwanaadaan laakiin dastuurkaa daacad u ahay oon ku dhaqmaya oon difaacayaadu dee dunidii jinsiyad la'aanna dadku ma joogi karaan iyo dukumenti la'aan dukumentigiina dastuur buu ku wada xidhan yahay inaad meel saxiixaada laga yaabaa yamiinul walaa waxa carabiga lagu yidhaahdo oath of allegiance baad hadda waxaa laga hadlaya intaa waaye taasi haddaba marka kood waxaan rabaa inaan idhaahdo laba arrimood baa halkaa ka muuqanaya kow hadda dunidu dadku jinsiyad la'aan ma joogi karaan oo dukumenti la'aan lama joogi karo laba dunidiiba dastuur baa wada qabsaday qodob saddexaad baa jiro meel intaad ka tagto meel kale dukumenti la'aan maba iska aadi kartid haddaad tiraa waddanka waan iskaga tegi horta dukumenti aad ku baxda waa inaad hesho horta broseska dukumentiga waa inaad bartaa meeshii aad u socotayna maba ku aqbalayso dadkii waa la kala xirxiray jinsiyadaha loo kala sameeyey ta aad u socoto jinsiyadna ku siin mayso tan aad u socotana wadatana kuma joogi kartid oo waqtiga kaa dhammaana waa inaad ka baxdo saa darteed mashruucii ahaa waddan muslim oo furan oo la isaga hijroodana maanta ma taalo soomaaliya haddii la yidhaahdo hadda niman soomaaliya ma soo aadi karo hadda nin waddamo kale ka yimid oo qowmiyada kale intuu taga hadda miskaga noolaan karaa ma dhici karto waxaan ka hadlaynana waa xugun sharci ahoo qowmiyad soomaali maa xukunka sharciga ee laga hadlaya waddanka marka la joogo soomaali ahaw carab ahaw afrikaan kale ahaw eeshiyaan ahaw caddaan ahaw mas'aladani waa jinsiyad la qaadanayo iyo dariiq broseska la marayo iyo qof muslima way waxaan ka hadlayno hadda nin soomaali ah kama hadlayno xukunka sharciga adii waxaan weysada uu jabiya soomaali kaliyu ka jabiya maaha marka wixii markii la yiraahdo waxaan waa la samaynayaa muslimna waana dadkii muslimkaa horta dukumenti la'aan ma joogi karaan maya meel ay u cararaan oo dukumenti la'aan ogol miyaa jirta meel dukumentigeeda aynan haysanin ku kale ma iskaga joogi karaan qof shaqo iyo si yar u helay mooyaan dadka ma iska joogi karaan dhaqdhaqaaqii dukumenti la'aan ma la samayn karaa dastuurkan iyagu wax ma ka bedeli karaan intaba waa maya markay sidaa noqoto dadku waxay ku jiraan xaalatul idiraar way ku qasban yihiin khiyaar ma laha waxyaabaha dunuubta iyo macaasida intay dooni hala ekaatee markay daruuro timaado way bannaanaataa maxduuraadka bannaanaado ay ka mid tahay kufriga markii ikraaha la yidhi maxaa loo baneeyey ilaa man ukriha wa qalbuhu mutmainun qofka naftiisuu badbaadinayaa ama naf dad kaloo muslimuu badbaadinayaa ama maalkiisuu badbaadinayaa saa darteed baa loo ogolaaday inuu sameeyo intaa waxaa jamciye ururiya waa daruura ikraahuna waa suuro iyo tusaale ka mida tusaalaadka daruurooyinka saas darteed mas'aladu markay noqoto qofkii maba ka maarmo mana ka leexan karo wixii sidaa qofka kaga dhaca sharcigu waa cafis wuxuu leeyahay magacaygu waa cabdicasiis maxamuud sheekh waxaan weydiinayaa waxaa jira mayd lagu sameeya practical oo yaala jaamacadaha marka diintu maxay ka qabtaa shareecada in meydadka practical lagu sameeyo jaamacadaha yaala alxamdulilah way bannaan tahay gaaraan hadduusan muslim ahayn qofka in la jeexjeexa la diidan yahay waa qofka muslimka ah oo kasru cadmi lmeyiti ka kasri xayan waaye kasru cadmi lmumini bay culamada qaar sheegaan saas darteed in dadkaa lagu barto si dadka nool loo daaweeyo xanuunadu say u qaadaan xididada iyo jirku si u samaysan yahay way bannaan taho waa daruuraad lagama maarmo laakiin culamadu waxay yidhaahdaan intaad muslim ka maarmi kartaan ka maarmo magacaygu waa ismaaciil dalal cabdulle sheekh waxaan weydiinaya laba su-aal kow culimada dowladda mushaarka ay siisay ee u fatwooda waxa ay dowladda rabtana usoo saara maxay diintu ka qabtaa laba qofkii yidhaahda kitaabka alle looma soo dejinin in dal lagu xukumo xukunkiisa muxuu noqonaya alxamdulillah su-aasha hore dabcan dee waxaan dowlad in loo shaqeeyo mushaarna laga qaato way bannaanta
ama shaqo kale ha loo qabto ama shaqo wacyigelin diineed ha loo qabto ama ha la qabto shaqo dadku ay u baahan yihiinoo masaladii fatwadii iyo qadihii iyo xukunkii way bannaanta waxaan diinta ku bannaanayn in la jideeyana ma bannaana ama dowlad ha noqoto ama ganacsadaad u shaqaysiiyo hay-ad ha noqoto ama shacab ha noqoto adoon cidnaba u shaqaynin wax diin ahaan khaldan inaad dadka u sheegta ma bannaana mana iska laazimaanoo nin kastoo dowlad u shaqeeyahay dowladdu mar walba waxay rabtana horta wax wada khaldan ma aha oo dowladdu haddii mararka qaarkood wax khaldan fatwo a rabto marar bay wax saxan rabtaa dowladdu mar bay mukhaadaraad la dagaalamaysaa mar bay tuuga iyo burcad la dagaalamaysaa oo laga hadlayaa mar baa dhaqan xumo iyo anshax xumo kale laga hadlayaa mar bay dowladdu rabtaa dadka musuq maasuqa iyo tuugada iyo beenta iyo khiyaanada iyo hantida la dhunsanaya in laga daayo waxyaabahan dowladdu in laga hadla ay rabtaay wax wada xun ma aha hadday marmar timaado waxyaabo ay rabto si khaldan in loogu fatwoodo uma bannaana ninka culimmada ah hadduu sameeyana wuu ku dambaabi laakiin maxay ka noqon kartaa percentage boqolkiiba intay ka noqon kartaa waxyaabaha baahida dowladdu ay qabto dadka in laga wacyigeliyo diin ahaan waxa ay dan khaldan oo gaara ka leedahay boqolkiiba inteeba uga dhigmayaan haddiise dadkii fiicnaa ay ka cararaan kuwaan diinna aqoonin danna waxba kala ahayn baa tegi markaasuu dadkii xaaraan iyo dembi iyo baadi kasta u fatwoon saa darteed haddii sharka wax la yarayn kara dowladda waxyaabana laga qaban karo wixii markaa dowladdu dan gaara ayna kala ahayn waxa saxan ee wanaagsan dadka loo sheegi karo waa shaqo la qaban karo nacam masalada labaad ee ah qofkii yiraahda kitaabka kale looma soo dejinin in dal lagu xukumo xukunkiisa muxuu noqonaa qofka in la xukumaay waxaa ka fudud ereyga in la xukumo uu yiri ereygaadi waa khaldan yahay oo sharcigu ummadda in lagu xukumo lagu dhaqo u soo degay ereygaasina erey diin ahaan khaldan wey qofka markaad xukumayso waxyaabo badan bay u baahan tahay sharcigu oo qofkan khalad buu sameeyey iyo xukunkii khaladku yeelanaya waa kala duwanaan karaan walidaalika waxaa jira wax khalada oon qofka loo qabanayn nabiguna wuxuu nooga tilmaamay xataa gaalnimaha ugu weyn qofkii carabkaaga afkaa ka xaday nin baa intuu aad u farxay buu inoo sheegay yiri allahuma anta cabdii wa ana rabbuka addoonkayga wuxuu rabay allahuma anta rabbii wa ana cabduka inuu dhaho ereygan uu yiri waa erey xun oo khaldan oo gaalnimaha laakiin isagu nabigu muu gaaloobay marni akhta'a min shiddati alfarax kuwa markaa soo islaamoon aqoonin baa wuxuu ijcal lanaa daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaatin geeday kilmankan caabudana ilahay ka dhigtaan baysa annagana geedan caabud ilahay ka dhigana noo samee weli waa reer bani israa'iil say muuse ku dhahay ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalihatu laakiin waad gaalowdeen ma dhihin saxaabigu wuxuu yidhi hadda dad soo islaamoon diinta aad u aqoonin bay ahayn mana waxaan rabaa inaad ogaato ereyga khaldan iyo ficilka khaldan qofku xukunkiisii waa qaadan karaa isagana xukunkii la saarina way dhici kartaa saas darteed dee qof aanan hebel garanaynin xukunkaasuu qaatay oo haddaa qaadimiihi ma dhihi karo lakin waxaan dhihi karaa ereygani waa erey khaldan oo dembi ah asalaamu calaykum magacaygu waa ibraahim maxamed dhuure sheekh waxaan weydiinayaa shuruucda ugu wanaagsan ee sunanta iyo saxiixeynka inuu ii tilmaamo iyo sidoo kale kutubta ugu wanaagsan ee mawduuca shaqaay quluub kutubka ugu wanaagsan ee taariikhda bini aadamka laga qoray iyo kutubka ugu wanaagsan ee siirada nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee laga qoray jazaaka allah khayr alxamdulilah de waa fasal dheer oo kutubahe soo koobeyna haddii saxiixi muslim la yirahdo saxiix bukhaari haddii la yirahdo fatxulbaariga ugu fiican ibn xajar alcasqalaani intaan garanayo hadduu saxiixi muslim la yiraahdo sharxa nawi aad buu u fiican yahay sharaxa sheekhii ethoobiyaanka ahaana aad buu uga sii fiican yahay sunan abi daawud haddii la yiraahdo laba sharax baan dhihi lahaa sharaxa cawlulmacbuudka la yiraahdo iyo sharaxa badlulmajhuudka la yirahdo way isdhamaystirayaan haddii tirmidi la yiraahdo tuxfatulxawadiga almubaarak fuuri uu leeyahay baa ka mid a shuruuxda ugu fiican
nasaa'i iyo ibnu maaja sharax badan oo fiican oo leeyihiin xaashiye yar mooyeen maanan arag sharax dhammaystiran oo leeyihiin sharax baa lii sheegay laakiin maanan akhriyno wuxuu kama bixin karo raqaa'iqdii iyo quluubtu riyaad saalixiinku kitaabta aad ugu fiican buu ka mid yahay iyo aladkaar labaduba nawowi uu leeyahay minhaaj ulqaasidiinka ibnu qudaamana aad buu u fiican yahay kitaab aad u fiican weeye mawcidatu lmu'miniin min ixyaai culuumiddiin jamaaliddiin alqaasimina waa fiican yahay kutubta ibni abidunya silsiladiisa faraha badanna oo masaa'il kala duwan oo mar walba quluubta taabanaya ka hadlayana waa ku dhiirigelin laha waxaa kaloo ku dhiirigelin laha kutubta ibn alqayim madaarij saalikiin iyo addaa'u waddawaa'u iyo iyagana aad bay u fiican yihiin kutubtaasi quluubta waxa taabanaya maxaa dhiman siirada nabiga iyo taariikhda soo maha taariikhdu albidaaya wannihaaya ibnu kathiir aad buu u fiican yahay kuwa kalood ku kabatana ma waayi doontid siiratu ibnu hishaam aad bay u fiican tahay hadday kugu dheeraato raxiiqu lmakhtuunka safiir raxmaan mubaarak fuuri isagana aad buu u fiican yahay nacam waa cabdullaahi maxamed qof salaado badan iyo soon badan ay ka tageen tiradana aan garanaynin sidee buu u qalayn karaa maxaa sila gudboon alxamdulilah qiyaas baan ku siin karaa laakiin waxa adigu aad ka tagtay oo malakeynkii kugu qoreen adiguna aad dayacday tiradii garashadeeda waxaasaa la hubaayoo lagaaga dhaafi ma garan kara aniga waayo adaa markii horena ka tagay oo dembi galay marka labaadna dayacay tiradii inaad xasuunaato laakiin ilaahay agtiisa iyo diiwaankii malaa'igta way ku qoran yihiin qofka waxaan uninayaa laba arrimood intii uu garanayana dib ha u qadeeyo ilaahayna dembi dhaaf ha weydiisto acmaasha khayrka iyo cibaadaadka ha weydiisto ilaahay toobada waa aqbalaa waxaanu rajaynaynaa toobada inuu ka aqbalo ka cafiyo haddii dee intu wax iska daba maraan aakhara loo qabsadana dee lama dulmiinaya dembi u galay baa loo haystaa wuxuu dayacay baa loo haystaa naam asalaamu calaykum sheekh waa cabdijabbaar mustafa xuseen sheekh marwo uu aabahay qabi jiray ayaa dhimatay tiyoon wax u dhalin meherkiina aan la siin marwada aabaheedna ma noola meherkaasi ma waxaa qaadanaya hooyadeed mise walaalaheed si cafis ma yahay haddaan la awoodin waqtigan alxamdulillah waqtigay dhimatay horta ku xidhan tahay aabbo oo nool miyay dhimatay wayse way ka dambeysay aabe uu ka dambeysay hadday ka dambeysay deyn bay ku lahayd iyaduna ayna cafiin hadday dhimatay deyntii weli way leedahay cidima cafin karto dadkiisa hadda jooga way bixin karaan ama dadkeedii dhaxal kale ay siin karaan haddayna dad dhaxal laba lahayn ama ayna garanaynin meel la ku ogeyna qadarkii meherkiisu ahaa bay u sadaqaynayaan si sadaqadaa ugu badata ajirkeeda ay u hesho su-aasheedu waxay tahay waa doctor cabdirasaaq oo jooga magaalada muqdisho waxaan sheekh weydiinayaa gaalnimada iyo shirkiga maslaxa iyo daruuri ma loo gali karaa su-aasha waan kasoo jawaabnaan u malaynayaa kan dastuurada ka hadlaynay waan ka hadlaynay daruuro ikraah waa daruuro qayb ka mida mas'alada la yiraahdo taqiyada ilaa an tattaquu minhum tuqaatan oo masalo daruuraadka ka mida daruuraadkuna ikraaha iyana waa qayb maraatibta acmaasha maqaasideeda ka mida daruuraad iyo xaajiyaad iyo taxsiiniyaad la yidhahdo daruuraadku ikraah ma soo wada galaan ikraaha laakiin daruurada hoos gala saas darteed masaladan in badan baa la soo celceliyaa oo gaar ahaan markay qadaaya siyaasiya iyo dowlada iyo dastuuriya timaaday masaladan timaadaa masaa'ilkeeda muddo 10 sano laga joogo doodaha badan ay ka dhaceen oo xataa Somali Channel xalaqaad cashiro badan iyo tusaale taariikh iyo xataa dhacdooyin siyaasi oo siyaabo badan loo sameeyey xilliga nabiga dhacay kadib dhacay aan ururiyay bay kamid ahayd waxaan dhihi lahaa haddii uu carabiga yaqaano channelkayga telegramka kutubtayda ku jirta الضرورات والمكفرات baa kamida daruurada iyo gaalnimada ma ku banaanaan kartaa maxay culimadu ka dhaheen maxaa adilo loo hayaa kitaabaan filay inuu 200 page ku dhow yahay buu ka heli karaa ka raadiyo islaam sheekh iyo dadiya barnaamijka su-aasheedu waxay tahay nimanka Soomaaliya ka dagaalamay shabaab ayuu yiri ma khawaarij ba adiga sheekh shibli ahaan maxay tahay aragtidaada ku wajahan nimankaas yararka waxaan filay su-aasha qaybii hore inaan kaga soo jawaabay qaybtiisa koobaad qaybtan kaga jawaabay waqtigan hadda waxay wadaan anigu jihaad uma arko dhaqankooduna dhaqan khawaarij way leeyihiin
dhaqankooda dhaqan khawaarij waa leeyahay laakiin waxaan is leeyahay waxa u baahan in la isweydiiyo maxana mashruuc islaami amiya mise ma horta khawaarijtu waa dad diin daacad ka tahay laakiin qiiradu intay ka badatay diineed ay dariiqii saxda ahaa la dhaaftay qiiro diineed ilaahay baa la caasiyay dad u lahayan aan mudnayn mashruucu ma arrin saas ah sisaan markii hore sheegayay waxaani waa mashruuc kale laakiin magac islaami ah leh masalada u baahan aan isleeyahay raggiina warbaahinta iyo dadka aqoon-yahanka iyo dadka xogta haya in si toosa looga doodo waa khawaarij iyo kanay sameeyeen iyo wadaadduun baad ku wareegtaane horta mashruucan yaa leh yaa fangareeya muxuu fuliyaa siyaasaddu wuxuu fuliyaa ma jihaad baa in masaajidda tukanaya la qarxiyo dadka masaajidkaa la keeni jiray in riddiisa lagu laayo ma jihaad baa dad muslim oo bannaan tukanaya ama bannaan taagan in nag laga dhigo hadaf jihaad bay noqon kartaa kadib waxay keenay su-aasha mashruucan yaa leh horta sidiisaba yuu u shaqeeyaa ilaa iyo hadda muxuu midho dhaliyey midhihii ma wax islaam iyo khayr u adeegayuu dhaliyey mise wax kalu dhalay waxaan isleeyahay waxyaaba raggina warbaahinta waa laftiin waa cabsataan baan u malaynayaa waxa miiska in la dhigo u baahan waxaa weeye waxaas oo xogta maxaa dhacay si fiican wixii xog la hayo iyo wixii xaqiiqo yaalla inta miiska la saaro islaami khaldamay hadduu yahayna qaab loo saxu leeyahay intuu mashruuc kale leeyahay qaabka loola dhaqmo buu leeyahay billahi tawfiiq mashruuca la soo ogaada asalkiisa horta mashruucani muxuu yahay mashruuc islaami ahoo khaldamayba mise waa mashruuc kaloo magac islaamiya shaati loo xiray nin baa laga sheegay maxaa tuug shaafiiq qaadi maqashay beer baa laga soo xaday carruur baa ka soo xaday beertii u soo raad qaaday baadiyaa waxaa la yaqaanay dugsiga maqribkii inta dabka la shidaa wax shaafiin la yidhahda qaada bismillaahi shaafiin la qaada ciyaalkii beerta ka soo xaday oo shaafiiq qaadayuu yimid alla maxaa tuug shaafiiq qaadi waxay u baahantay inaan raggiinani warbaahinta iyo xogaha iyo dadka xogta isu keentaan wararta waxani muxuu yahay aad qiimeyn ku samaysaa billahi tawfiiq waxaad daawada sheekh aad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinaa waqtiga qiimaha badan aad u mahadsantahay daawada intaas ayaanu ku soo afmeeynaa barnaamijkan labada xalqadood ka koobnaa ee aanu la yeelanay Nairobi kula yeelanay sheekh Dr. Maxamuud Maxamed Shibli oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed aniga iyo sheekh martida isku duban waxaan idinkaga tagaynaa waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan nabadgelyo haddii aad rabtaa in ganacsigaaga uu cirka galaa amaba aad gaarta malaayiin macaamiil ah oo ku kala nool daafaha caalamka taasi waxaa kuu suurtagelin karta oo keliya ConnectWave waa shirkad digital marketing ah oo u taagan isku xirka ganacsatada iyo macaamiishooda iyadoo loo sii maray dadka ugu saameynta badan baraha bulshada waxaanu wakiil ka nahay malaayiin shacab ah kuwaasi oo diyaar u ah in ganacsigaaga ay qayb ka noqdaan waxaanu ku haynaa xalkii kama dambayska ah la soo xiriir ConnectWave si ganacsigaaga uu horumar ballaaran u helo